kuna waxaan wanaagsan daawadeen markasta dunida ka joogtaan halka naga daawanaysan waa Astaan Sports. waxaan eegi doonaa ciyaarta kama dambaysta ee tartanka koobka degmooyinka ee magaalada Hargeysa. ciyaartaas oo u dhaxaysa degmada Ibraahim Koodbuur iyo degmada Axmed Dhagax. waxaan eegi doonaa warbixin kooban oo aan ku diyaarinay degmada Axmed Dhagax sidana heerkan ay ku soo gaadhay ciyaarta kama dambaysta. waxaan inoo eegi doonaa wariye Khalid Caalim. bilowgii horeba khubarada ciyaaruhu waxay saadaalinayeen inay meel sare gaari doonto degmada Axmed Dhagax. waxay ka tirsanayd hormada koowaad ama group A oo ay kula jireen gacan libaax 31 May iyo 26 Juun iyadoo ciyaartii koowaadna la yeelatay naadiga gacan libaax oo ay ciyaartaasi ku dhamaatay 5-2 ay ku badisay naadiga Axmed Dhagax. ciyaartii labaadna waxa ay degmada Axmed Dhagax la yeelatay degmada 31 May oo ay kaga adkaatay 2-1 halka ciyaartii saddexaadna Axmed Dhagax la yeelatay degmada 26 Juun oo ay kaga badisay gool iyo eber. ciyaartaasi oo lagu sifeeyay inay ahayd ciyaartii ugu adkayd intii ay socdeen ciyaaraha degmooyinka caasimadda Hargeysa. sidaasina waxa ay ku hanatay degmada Axmed Dhagax 9 dhibcood oo ay kaga soo baxday groupka A waxaana sidaasi ugu soo gudubtay afar dhamaadka ciyaaraha koobka degmooyinka caasimadda Hargeysa. halkaasi oo ay ciyaartii koowaad la yeelatay degmada Axmed Dhagax degmada Maxamed Mooge. ciyaartaasina waxay ku dhamaatay 3-1 ay ku badisay degmada Axmed Dhagax oo ay sidaasina ugu gudubtay ciyaarta kama dambaysta ee koobka. ilaa haddana degmada Axmed Dhagax waxay dhalisay 10 gool halka iyadana laga dhaliyay 5 gool. ugu dambeynna naadiga degmada Axmed Dhagax u ciyaara waxa uu haatan taagan yahay ciyaarta kama dambaysta ah iyaga oo u xusul duubaya sidii ay u hanan lahaayeen koobka degmooyinka caasimadda Hargeysa. sidoo kale Astaan Sports waxay naga diyaarisay warbixin sida ay ku soo gaadhay degmada Ibraahim Koodbuur ciyaarta kama dambaysta. waxaan inoo eegi doonaa saaxiibkan Maarik Jaamac. degmada Ibraahim Koodbuur waxay ka mid ahay degmooyinkii ku loolamayay tartanka koobka degmooyinka caasimadda Hargeysa. waxaana ku jirtay group B iyada iyo degmada Maxamed Mooge, Maxamuud Haybe iyo Axmed Macalin Haaruun. degmada Ibraahim Koodbuur ayaa lugteedii ugu horeysay waxay la yeelatay dhigeeda degmada Maxamuud Haybe halkaas oo 4 gool iyo 1 ay kaga badisay degmada Maxamuud Haybe. isla lugtii labaadna waxay la yeelatay degmada Ibraahim Koodbuur dhigeeda Maxamed Mooge oo ahayd dabcan ciyaartii ugu adkayd ee Ibraahim Koodbuur ciyaarto. ciyaartaas ayaa iyaduna ku soo dhamaatay 1-1 ay guusha ku raacday Ibraahim Koodbuur. ciyaartii u dambeysay ee group B waxay la yeelan lahayd degmada Ibraahim Koodbuur Axmed Macalin Haaruun balse degmada Axmed Macalin Haaruun ayaan gabi ahaanba ka soo qayb gelin ciyaartaasi halkaasna waxaa 3 dhibcood ku qaadatay degmada Ibraahim Koodbuur. sidaasi waxa ay ku haysataa degmada Ibraahim Koodbuur 9 dhibcood. sidaasi waxa ay ugu gudubtay degmada Ibraahim Koodbuur ciyaarta fardhamaadka. degmada Ibraahim Koodbuur ayaa iyadoo 9 dhibcood sidata waxa ay la ciyaartay ciyaarta fardhamaadka dhigeeda degmada gacan libaax oo ay kaga badisay 2 gool iyo 1. degmada Ibraahim Koodbuur ayaa sidaasi ugu gudubtay final ama ciyaarta u dambaysa waxaanay bari tole oo Jimco ah hadii alla yiraahdo ay haleeli doonaan dhigeeda degmada Axmed Dhagax. waxa la sugaaba waa degmada hanan doonta guusha. kulankan ayaa kulan aad u xiiso badan waa kulan ay daawadayaashu oo idil ay sugayaan. tartankan oo kaliya tali eegi maayo ee waxa jira tartan kale oo xiiso badan. waa tartan u dhaxeeya ciyaaryahanka Messi iyo ciyaaryahanka Maxamed Xaam oo iyaguna ku tartamaya gool dhalinta. labadan macallin ayaa ah laba macallin oo isku koox ah oo ka wada tirsan kooxda gaashaan waa macallin Maxamed Ibraahim iyo macallin Cabdikariin Guji.